Hello, salaam alaikum guys. Kulso dhawaada degan 101 masha Allah. Channelkayga hadaa ku cusub tahayna don't forget to subscribe. Insha Allah video soo geliya every week Sunday or Monday. Insha Allah marka insha Allah maanta waxa waaye mommy time oo maamada waqtiga hooyada waaye masha Allah inaa 2 saac ama 1 saac at least marka ilmaha iskoolka laga aado ama meel laga aado inaa suubsatid marka aniga maanta ay barbeer baad baan suubsaday biyo kulul guriga degan yahay duqa ma joogo duqa hadii rabto inuu kala joogana that's your option masha Allah but aniga waxa waaye relaxing my time kaygu only marka meel yar oo special inaa leedahay oo ku relax gareyso shamacaada caraftaada maxay ahayd catarkaada barafunka whatever aad jeceshahay inta dhigatid special adiga gaar ku ma arkano ilmaha iyo qofku masarka jaami kara marka only maamiya iskala marka teeda tan waaye noodka ilmaha iyo qoreen waxa ku yaalo iska akhriso markii baadkaada adoo kul ka soo baxad insha Allah fruitkaada soo qaado hot chocolate soo qaado adii qaxwo aad jeceshahay ama shaah aad jeceshahay is your choice whatever you enjoy it adiga because adiga waay marka time kaadi waay marka ina aniga hot chocolate kana jecelahay mustaqbal madaxu ii dijiya marka cabo cream kaasan ku daraa insha Allah meel kasta lagu gadaa Swiss magacan waa aniga intuu soo ku qoran yahay Swiss Miss allaha ama hadii qaxwada aad jeceshahay most of us qaxwada iska jecelnahay qaxwada also welcome waaye adi marka wixii maskaxda ku dajiyo oo ka reysatid qaylada ilmaha iyo qaylada duqa iyo you know this is mommy free time allaha waa maama bas ay leedahay marka insha Allah marka u baahan tihiin hadii shopping ka enjoy gareyso you can go shopping aniga still I don't like inaan baxbaxo maanta relaxing kaas oo inaan maskaxda dajiyo insha Allah marka insha Allah enjoy it marka maalin madaxa dajisiin suuqsada hooyo kasto marka aad ayaan ii salaamaya intii aad video ku xirnayna subscribe gareeya again insha Allah aan follow me degan 101 aad ayaan ii salaamaya assalaamu calaykum ربنا أقبل يو أهاتي إنا قيس وضيع